kulan wacan daawadayaal waxaan ahay Samiir Cabdirasaaq markuna soo dhawaada barnaamijka diiradda wareysiyada ee ka daawataan muuqaalbaaya SBTV toddobaadkan waxaan barnaamijka diiradda ku saari doonaa dhibaatooyinka alabay ka cawdaan beelaha jireer weyne ku aadan hanaanka awood qaybsiga dalka waxaan barnaamijka marti inoogu ah oo nagala qayb gali doona aqoonyahan Sidow Macallim Sidow oo toddobaadyadii ugu dambeeyay baraha bulshada laga arkayay ama lagu dhex arkayay isagoo u doodaya beelaha jireer weyne dhibaatooyinka ay qabaan sidoo kalena caawinaya dad danyar oo ka soo jeeda beelaha jireer weyne Sidow waxaan kugu soo dhaweynayaa ugu horeen barnaamijka diiradda wareysiyada iyo sidoo kale muuqaalbaaya SBTV waa mahadsan tahay Samiir runtii aad ayaan ugu dhawahay warbaahinta SBTV muuqaalbaayaasha marjarafta maanta ay sameeyeen runtii aad aan ugu faraxsanahay markale aan ku soo dhaweynayaa Sidow intaan barnaamijkeena guda galin oo su'aalo badan oo miiska saaran aan ku weydiinin bal Sidow Macallim Sidow waa kuma dadka isbar magaca in la ogaado waa wiil gawar wuxuu yahay wiil ama nin waa ama wiil iska yaraaye waxaan ku dhashtay gobolka Shabeellaha Dhexe 1995 aan dhashtay waxaan ku dhashtay tuul la dhahayo Kulmis sidoo kale waxaan ahay aqoonyahan waxbarashadii dugsiga hoose waxaan ku soo qaatay gobolka Banaadir degmada Waaberi meesha aan ku soo barbaaray oo ku wax bartay jaamacadda University of Somalia BA meesha ay taala ka qalin jibiyay waxaan ahay bare macallin iskuul ahay mar waxaan soo noqday macallin kabiir oo dugsi dhigo oo ardayda wax soo baro just laakiin hadda macallin iskuul arimaha samafal iyo siyaasad iyo meelahaasna waa soo galay iyo wacyigelinta bulshada marka Sidow qofka shakhsiga la dhahay waa aniga mar walba waxaan aad aan ugu dheereeyaa arimaha qadiyada dadkan dulman ee beelaha jireer weyne aan mar walba arimahooda ka dooda kana hadlaa waa tahay Sidow Macallim Sidow waxaad nooga sheekaysay taariikh nololeedkaaga dadku waxay isweydiinayaan Sidow goormay ku dhalatay in saaxada siyaasadda uu soo fuulo isla markaana uu falanqeeyo xaaladda guud ee dalka iyo waliba dhibaatooyinka beeshu ka dhashay heesta saaxada siyaasadeed xilli aan soo fuulo waxay mar igu war dambeysay warbaahin oo wareysi aan siiyay oo arimaha dhalinyarada aan ugu hadlayay dawladdan tan maantii farmaajo ay ahayd dawladdaas in badan waxay ahayd midii oo dhalinyarada yaani zaid loo dulmiyo oo fursadooyinka aysan helin mar walba dhalinyaradan diiradda saari jiray markii oo qabiilkii laga soo tago oo jireer weyne markii laga soo tago dhalinyarada gobolka Banaadir oo qarax markii dhaco iyaga aafeeyo maamada cajiinka gado caanaha gado wixii oo ilmaheeda wax barto ee fursadaha ilaa iyo jaamacad ay markay soo dhameeyaan shaqooyinka kuwa dibadda la siiyo oo shaqooyinka gobolka laga siiyo ama dawladda guud ahaan la siiyo aad u nacbanaan ka dooda jiray xiliyadaas aan ku soo biiray iyo kulamada ay qabtaan shirarka iyo seminaarada iyo la qabtay markaas saaxadda aad ugu soo biiray Sidow waxaad ka dhawaajisay in dawladdii hore ay si aad ugu dhib qabeen dhalinyarada ka soo jeeda beelaha jireer weyne maxay tahay dhibaatada aysan dadka ogeyn ee aad adigu ogtahay aad noo sheegi karto aniga waan ogahay dhibaatooyin fara badan iyo xilal waaweyn aan ku weyn dawladdaas oo hore dawladdaas waxyaabaha anaga oo dadkeena oo maxabba ay qaatay ee kamid ahayd oo xabiibul malaayiin ee xitaa magac bixeen oo anaga xabiibkii dhaheynay oo la reebo fursadihii anaga aan helno oo noo heeliso runtii aadan ugu waanay ninka ugu saameynta badnaa jeneraaladan leeyahay oo Soomaaliya jeneraal Umar Axmed Maxamed Nuur Sheego la dhihi jiray oo nin aad looga baqo dawladdaas waxay qabatay dhuunahay qabatay dalkii way ku heeweysay darajadiisii maxay loo magacaabo nin saameyn leh oo gobolkan Shabeellaha hoose oo dhan ninkii gacanta oo ku dhigay waa oo isbaarooyinkii goobihii micnaa oo nabadgelyo oo ka dhigay oo hagaajiyay meeshii la rabo in la dalco ama xil sar la siiyo dalkii micnaa joogitaankiisa xitaa loo quuri waayo oo dawladdii la rabo inay cishato nin halgamaa oo dalka waxtar u leh oo geesi in la celiyo la rabi dawladdii awood u yeelan weys inay cishato waatay dawladdaasi dawladdii oo farmaajo دولتي فرماج واي دولت داس واي أنا دولت داسيتي زائدا ودول منين
hadda dowladda xasan sheekh oo madaxweyne xasan sheekh oo ka yahay waxa hadda dowladdii waa ka muuqanaa qaaran ka muuqanaa taa waa ka muuqateen oo xilalka hadda haysataan waa haysateen sida xildhibaanada wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga maxay tahay marka waxaa xilalka dowladdaasi idinka hortaagnaa tan aad ku haysataan sheegaysa dowladdaas hore xildhibaanada iyo wasiirada waa structure oo hore oo dhisnaayo oo ku qaataan waa awoodaha waaweyn oo dalka dhan lagu kala qaato waaye waxyaabaha waxaa jira hoose generaalada oo la dalcayo oo farmaajo dalcayo wiligaa ma aragti generaal oo jareer weyn oo farmaajo xilsiinaya ma aragti adaan ku weydiiyaa soomaymo waxaan ku weydiiyaa saraakiisha oo kale ma aragti saraakiil oo tiro badan oo lasoo bandhigaa oo jareer weyn ah oo xilliga farmaajo jiri ma aragti waa maya sidoo kale ma aragta xafiiska ra'iisul wasaaraha awood ma ku leeyahin anaga maanta xafiiska ra'iisul wasaaraha awood aan ku leenahay tii dowladdan hadda oo xasan sheekh oo kala Soomaaliya sabto qof ahaan idinkuguma jirin xilligii farmaajo kale ma noo jirin wixii dowladda oo arrimaheeda oo jareer weyn meel walba qofkii noo joogo xitaa safiir qofkii noo ana waa ogahay oo dowladda noogu jiraan ileen dadkiis ka warheeya qofkii shaqaalaha reedka xitaa tirada noogu jiraan dowladdan ka warheeya waa tahay sidow macallim sidow waxa ka dhawaajisay in dowladdii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aad ahaydeen dadkii ugu badnaa ay taageerada u muujiyay markii farmaajo la doortay oo u dhintay wili oo annaga waxaan la dhigi jiray ilmihii farmaajo waxna kama dheefeen maxay tahay wax la kuugu tilmaamay ilmihii farmaajo maxay tahay mushaaraadka farmaajo oo dadka dhalinyarada la siinaayay xitaa anaga meen waxaa la sii jiray niman isaaq dhalinyaro majeerteen reexaan dhalinyaro abargidir wax isku jiraan aa la sii jiray oo xitaa reer xamar ay ku jiraan mushaaraadka baraha bulshada annaga iyo tiktok iyo dadkeena jini isku ridaan hal qofooda oo jareer oo mushaar ku qaadanaya xilligii farmaajo ma jirin ma fahanti marka adi oo dad qof u dhimanaysa ama u dagaaltamaysa waa inaa libinta oo ka heshaa farmaajo dadkeena maxab weyn ay u qabeen hal sheego inuu celiyay ahayd oo dhaho generaalkaas cishta ninkaasaa generaal haddii asiga noo celi waayo qof kale jareer inuu generaal naga dhigay ahayd ani runtii dowladdaasaytii markii ani eedaha aan ku bilaabay waxaa naqday qof shakhsi ugu horeeyay villa Soomaal laga soo waco laga casuumo naga jooji la dhaho oo eedaha naga jooji la dhaho dowladda la yaa ku casuumay xagga laga casuumo waa cidda ku casuumay tiimka oo farmaajo oo baraha bulshada u qaabilsan iyo waxaas ay casuumo waxaan dhahay aniga dadkii xuquuqdooda maqan ma helaa dadka idinkaad mushaarka qaadatiin oo baraha bulshada mushaar qaadatiin hal qof jareer ugu jiraa waa may marka maxaa ii sheegaysiin 5 qofood oo jareera wata ma igu dareysiin aan dhahay waaya in la idhaa ali mermersi 5 qof halkay u rabtay 5 qof waxa u rabay dadka mushaarka qaadanayaan oo baraha bulshada qaadanayaan tiktok leeyda gabdha aan heesanaa wiil aan oo tiktok isticmaalayna ina iyaga qoro meeshas nologli oo farmaajo ay buubuuniyaan ileen baraha bulshada iyaga kuwa fardheertan ay buubuuniyo moogtahay anagan in 5taas nugul daro oo dadka mushaar qaadana inay ka miqnaa farmaajo taageer waxna ma lagu siinaa ana mugu jiriyaan dhaan dadkii dulmina ana mis dulmina dhaan waa in wax helaa wax ugu hoosay xitaa airport xitaa meel yar xitaa xalliga siiyaan dhaan ay support anaga dadkeena maysan dareensaneen mana fahansaneen in oo farmaajo dowladdiisa oo aad iyo aad ugu liideen uguna dulmaneen walaalaheena markay soo banaan baxayaan war waxaan dhihi jiray يعني جريرو نمكان أو عبد الرحمن عبد الشكور وحاس أو بنابحة عن جلان ده عن ضد كلي علنا كميت نمكان هراعين هجلين يعني دور خفاضة أو نويل أو مرصد أو حسن على الخير اسكتلو وحفيزي ديس كشخي أنا وحنا أقول الله اللي يقدر سامش وطاير أنا ماشي أنا واحد مكويسته يا أقول الله أنا ضد كان جريرو أنت جن اسكوريدوين وإحنا مكهلوين يا وحي هلان ضد كي قيلي للسينو إيه أنا مقيلنو وحمل السين وحيهم ملها نضاع فرماج طاير محمو laakiin ficilkeeda hel annaga marka dadkeena waxyaabaha isku qaldeena waxay tahay magac oo barahaas bulshada lagu qaaqaalina iyo sawirooyin qurux badan oo la soo bandhigaa war adi maxaa meesha ka haysataa in su'aashaas is weydiisid ana meeshaan haddaan waxba aan ku haysanin maxaa nafsadeeda halis u geliyaa ma dadkii wax aan la helay maan soo raac man la taageer man la jiraado qof alaal fiiri madaxweyne walba oo dalkan ka mid noqdo oo jareer xibintii am xaq u leed siin waay aniga ma taageersanin reality markaan ka hadlo wallahi sidoo dowladii farmaajo markaan ka soo gudubnay dhibaatooyinka ku qabteen wadanka doorasho ka dhacday isbedel hogaamineed ka dhacay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay maaday doorashadii ka dhacday gobolada dalka badi xildhibaanadii ku soo baxay waxay isugu jireen kuwa doorasho
xalaala ku soo baxay kuwa la keensado kursiga lagu fadhiisistay idinka ahaan xildhibaanada idinku matalaya dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan baarlamaanka sidee ku soo baxay xildhibaanada anaga ma wato 8 xildhibaan aan leenahay hal xildhibaan oo xalaal ku soo baxay ma jirto xildhibaan walba kursigiisa waa loo xiray yaa u xiraayo qof jareer ma u xiraaya farmaajo iyo tiimkii oo waxa isku haysta ileen awood dalka waxa ahayd laba awood madaxweynaha hadda soo galaayo midkii sii baxaayo marka wuxuu rabiyaa haddii asiga soo laabanayo dad oo xajmi leh oo awood leh inuu markaas asiga soo aasto codka ugu shubayaan annaga raali markaan aas jareer weyn xildhibaanadan hadda oo la doorto raali ka manihi reality markaan waxaan raali u heeni wixii waagii la soo dhaafay oo sanadihii la soo dhaafay xuquuqaadka ee dadkan ay ka maqan yihiin meel saari waayeen haddii lagu soo celiyo waa isla meeshii jugjug meesha joog waa waxba isma tartab waxna ma soo kordhinayaan dalkan wax uma soo kordhinayaan dadkan wax uma soo kordhinayaan it means dadka xildhibaanada qaarkood saameyn weyn ay leeyihiin waxay saameyn ku leeyihiin waxay rugrugayaan dalkay rugrugayaan xitaa qabiilkooda aysan wax u qabanin dalkay rugrugayaan siyaasadda ay qasayaan dibiday tagayaan wax bay isku soo qasayaan wax bay soo xiraan iyaga wax xiritaan xitaa ma laha qofku waxa la rabaa inuu saameyn horta yeeshto saameyn siyaasadeed saameyn bulsheed saameyn dhaqaalo saameyn macna arimaha guud ahaan dalka dhan inay yeestaan hada Fahad Yaasiin for one person Soomaa hal qofood waaye anaga manal way hal qof saas xitaa wax u soo xirxiro oo siyaasadaaneeti wax tar u leh faa'iido laga baqaayo dadka bulshadiis ummadiis kala kiciyay malay way xildhibaan hebel jareer weyn oo ka soo jeeda wuxuu sameeyay intaas iskuul wuxuu dhalinyarada u sameeyay shirkad wuxuu tagay dibadaha tagay mashruuciyaal u soo xiray deegaankiisa MCH u furay isbitaal u sameeyay yani waxyaabaha wax tar kale oo bulshada u baahan tahay aan ka maarmin waa tahay sidoo waxaad sheegtay in xildhibaanada 8 gaaraya ee beelaha jareer weyn ku matala baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hal xildhibaan oo kaliya oo si cadaalad ku soo baxay taama si guda galayno xildhibaanada haatan jira ee idinka idin matalaadooda ma tahay mid muuqata maya waxa hortaagan waxa matalaadooda ma muuqato matalaadooda waxaysan ku muuqanin ilaahan kugu dhaariyay nin dulman ma aamusaa su'aalan ku weydiiyaa aniga waa dulmanahay for example waa cabruna gurigay kama soo bixi kari suuli ma gali karo ma hadli karo ma socon karo markaas yani ma aamusaa siyaasadda Soomaaliya xildhibaanada jareer weyne saasay ka yihiin iyagoo dhan waa wada dulman yihiin waa dad masaakiin oo waxa u maleysaa legend loo hee oo kala la hogaaminayo dadkan haddii nimankan aysan ahaalahayn dad la hogaamineen oo fiican oo hagaagsan haddii ahaal xadoole look it xadoole wadqaana mo xildhibaan xadoole waa xildhibaankii oo galmaax Yoonis gobolka banaadir xuquuq iga maqan ciidamo soo safi ad ciidan xitaa soo safin anaga had ciidana oo ku faano gorgor haram caad ciidan weyn leenaamo waa sameeysan karna hal meel in isku keeno raax xuquuq anaga maqane lambar 4 aan xirno dabka aan xirno inta aan xirno awoodaas waa la isticmaali karaa hadii awoodaas ciidan oo laga joojiyo bulshan leena community in la soo kiciyo markii bulshadii waxa mishiinka lagu dhaqaajinayo bulshadaas waxay tahay xildhibaanka waay runtii markii laga hadlo aniga bulshada ma dhaqaajin kari laakiin wacyi gelin uu sameey karaa xildhibaanka bulshada inuu dhaqaale geliyo oo hal xildhibaan ku filan xitaa 8 ma ahan galmaax Yoonis meeqwaad hal xildhibaan ruuxi ala dhaay waxaana idin ogolnaa waxaana wax lagu heshiisiyaa la siiyay anaga Cabdibillah lahaan hubyan lahaan wax ku daalta laakiin aan lahaano shacbiyad oo bulshadaasiti oo soo dhax gasho oo banaan baxay sameeyso daljirka imaado qayliyaan xuquuqdaas amqan waa la abuuri karaa maxaa koos gareey maanta hadii madaxweynaha uu baxo dibida aado xasan sheekh dibida dadka soo dhaweynay ma qof oo canjeera duway ama qof ma kultay maya qof jareera gurbaan jareera tuma anikina bil maxaa marka iga celiyo xuquuq marka iga maqan tahay xildhibaankii meesha wax ka fiiriyo oo la rabi dadkan madaxweynaha ama gudoomiye baarlamaanka durbaanta tumaan soo dhaweynaa dadkeeymo iyagii hadii maanta banaanbax aan ku sameeyo aan dhaho madaxweynuhu xaqeena nasi madaxweynaha asaasku yaaba ama gudoomiye gobolka ama gudoomiye degmada war dadkan dadkii xaq leh waaye daraad markii oo qof weyn soo dhaweynaa dadka bulshada ugu badan iyaga waa fiiri xitaa
dadka ma aragta ilaahan kugu dhaariyey waa maya marka xildhibaanka oo anaga maanta na matalo ma u taagan xildhibaan anaga na matalo oo xuquuqdeena maqan dhicin kara bataatanba ma ahan awoodba uma lahaanba sababtoo taa iyagaaba waxaa u malaysaa dad daciifiin ah oo la heesta u malaysaa lijinka loo heeyo haddaa hadashiin waa laidin dilaa dad la dhahay oo kale oo ka baqayaan xuquuqdooda xildhibaano laakiin saameyn leh ayaa idinka soo jeeda oo ka mid yahay cabdifataax qaasim wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga saameyntiis waxba ma tareysaba saameyn oo dowlad lagu difaacaya saameyn ma ahan saameynta saxda ee waxa waaye dadkaaga dulman inaa adiga difaacdid waaye kursiga maxaa loogu fadhiyaa 4.5 waaye yaa kursiga ilaahan kugu dhaariyay 0.5 waaye xildhibaan odiwaa ninka la dhahay muxuu dhahay beesheeda saleebaan ma ahayd aan kursigan ugu fadhiyaa u dhahay cabdifataax qaasim yoo ugu fadhiyaa ma habiima ugu fadhiyaa ama daarood dir ama raxbiima ugu fadhiyaa yoo ugu fadhiyaa makana ugu fadhiyaa wasiir ku-xigeenka gaashaandhiggan wuxuu ugu fadhiyaa jareer weyn oo dhan ninka ugu saameyn badan moo haddan ku leeyahay cabdifataax qaasim ninka ugu saameyn badan moo wallaahi inuusan jareer kuu soo kordhin karin uusan u haynin hadduu u hayn lahaa asigaa maanta dhalinyar aqoon-yaan ahee dadkii jareerta aqoonta laho kartida laho maasha allah inuu isku soo waco oo wuxuu dhiilaa niminyo xuquuqaa naga maqnaya wixii maalgelin ah waatanee kaca xildhibaanada kale maba waaba ka maaranaaba asaab dhalinyar ah nala shaqey karo waxna la taray laakiin hadoo dhaho asiga sombal ahaan dadkaanba meeshaas xildhibaanadaas horaa meesha marayna intaa maraa didho aqoontiisa dhaqaalihiisa waxtarnimadiisa dhalinyarnimadiisa firfircoonadiisa kulli bilaa yanfac walaa banuun waxba ma tartabo waa tahay waxaad leedahay hadda markaa xildhibaanada beelaha jareerweyne ku matala baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya matalaadooda ma muuqato hal matalaad muuqat ii sheeg matalaada ma waxay noqotay mid oo farmaajo lagu ammaanayo ama mid xasan sheekh lagu ammaanayo maya tusaale matalaada mid xasan sheekh lagu ammaanayo miya ma ahan matalaada waxa waaye mid dadkaaga adiga wax u qabanaysa iskool dhisaysid mch dhisaysid mashruuc u keen kartid hay-adaha geen kartid amniga geen kartid meel walba geen kartid koorsooyinka dibidaha soo baxo ya waxbarashada dibidaha soo baxo aa ku xeri kartid adiga dadkaaga geen kartid dadkaaga shaqo abuur u samayn kartid war ada nin xildhibaan taa bishii $3,000 qaataa moo $3,000 iyo $4,000 iska jabjabees kiradaada iyo waxaa ku dhiibo laakiin bulshadaada la fadhiiso soo kici hay-adaha iyo meelaha waxtarka leh isku xir ileen xildhibaanaa tahay NGO hay-ad soo galays iyo wixii dalka soo galaa iyo shaqooyinka kulli maanta awood u weyn xildhibaanka asiga waa saa laga rabaa ya asaa laga rabaa dadkan bulshada inoo kiciyo aniga xildhibaan mi maanta haddii xildhibaan ahaan lahaa waxaan awoodaa reerka aniga aan ka soo jeedo oo jareer weynaha eh xasan sheekh in albaab u gargaraac wili xitaa dadka dhan isku soo waco aan dhowryaa anaa xildhibaankii idin soo jeed aan wadada saas u soo maro aan wiil banaanka aan soo dhigo haddaan dhinto maxaan ku dhintay falilxaqi walxaq haddaan noolahay maxaan ku noolahay karti iyo geesnimo iyo dadnimaan ku noolahay oo wiligeena sharaf iyo ciz aan ku helay laakiin dadkeega la dulminaa haddaan fiiriyo anoo mas'uuliyaddii awood baawreed aan haysto wax walba samayn kara aan sameeyo waxaan noqonaa madluumkii oo asi daalimkii oo madluumka ahaa oo dadkii nin la dulmi asin daalim uu yahay aan noqonaa sooma waa tahay sidoo maxaa mar waliba u aragnaa dad dhahayo waxaan nahay jareer weyne oonan u arkin dad dhahayo waxaan nahay jilac weyne horta midaa jirto ereygan horta jareer weynahan la sheegayo horta karaamo waaye sidiisa banaanbo waagii hore markaan yaraa dadka markii dadka maanta sahameyn aysan leeyihin bulshada ama waxtarkooda oo hooseeya ama shaqooyinkii laga faanayo markay ka shaqeynayaan dadka hebel waa jareertaas jareer maan u malaysaa laakiin maanta magacii wuxuu noqday magac lagu faan dadkii shaqadii oo daraad yasay aan maanta ka wada shaqeeyo marka magaca jareer markii la dhaho physical markii la dhaho waa qof adag oo adag weynin maxaa la Soomaali weyn waa aragti Soomaali waa weyn qof weyn oo adag magacaas oo jareer horta saasa la dhahaa jareernina wuxuu ka kooban yahay dhowr iyo 10 qabiil jubbooyinkay degaan shabeelooyinkay degaan isteediyada maamul goboleedyada dhan way degaan gobolka banaadirna way degaan dibidan dadka ugu badan waa Mareykanka oo kale markii la tagaan qabiiladan kale waa dadka ugu badan jareerta ugu badan Mareykanka ay degtaa sidoo waxaad aad kulul u jeedisay xildhibaanada idinku matala baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ma jirtaa in idinka baad u soo jeedin siyaasadda dalka anaga waa u soo jeednaa riidiyan una annaga hadda haddii xildhibaanadeena soo wacaan oo ina dhahaan nala shaqeeya riidiya una laakiin fiiri waxaan ku heeyaa aniga sidoo kula hadlaayo waxa helay hadda koor meel shaqo oo muhiim ah helay oo dawladdiyan shaqo muhiim ka helay waxa i hor istaagay xildhibaanadeena qaarkood ay hor istaageen ninkaas aan oo keenin bal ka waran nin dad qof saas dhahayo
goormuu marka oo dadkiis wax orto bulshadaas wax u qabanaa goormuu aniga meesha marka aan tago adiga xilka ima siini moogtahay qof kale meesha isii wado adiga xildhibaankay meeshaas wax iga siin qof kale ay wado meeshii haddaan tago beri aan kuu tago ma booskaagii oo booskii siyaasadda ma wax ku soo kordhay mise wax baan usqaamay waxaa ku soo kordhay faa'iidaan ka helay yaa meesha kuu joogo siidow nin wax tar leh waay oo dadkiis wax u qabanaya waa dadaa kuu fanaa laakiin anigii bushiishankii u socday haddii ninkiisi oo meesha joogay ama wasaaraddii lahaa ama wasaaraddii meesha wasiirka ka ahaa aadhaada hebel hanoo keenin saameynoo noogu yeelana kursigeenuu dhaabaca ama annagoona dhaabaca siyaasadoo karuun sheegaa dhaa haddaa dhaada ka waran adoo xildhibaan mushkili waa iyada xitaa dhibaato waa xildhibaanada oo jareer weyne intay dadka ka heeyaan dhuntaasay dadka heeyaan qofkii maanta saameyn leh oo xitaa meel oo tago waxay 90% ama 100% isku dayaan inay ninkaas meesha laga raacday ileen saameyn uu leeyahay ninkan qatar waa dawladii dhan wixii oo kala wada kara aqoonyaan waay afmaal waay waxa leeyahay noo soo dhabeynaa dhaha sido marka la fiiriyo dawladda federaalka Soomaaliya maxaa idinka hortaagan in xilal sarsare oo muhiim ah ay beeshu ka qabato sida gobolka Banaadir iyo hay'adaha kale ee dawladda waarun anaga beesha shanaad markii la doorto beesha shanaad loo afar waa saan ogahay afartooda marka ciidaa waxa iska haysato gudoomiye arrimaha bulshada ma ahayd gobolka ciidaa haysato oo beesha shanaad cidna laba gudoomiye degma iska haysato taasoo dhan maxaa dhaliyay waxaasoo dhan waxaa sababay siyaasiga ama qofkii mas'uulka markaas meesha joogay ayaa dhaawacaas iska leh aana sababay gobolkan Banaadir xuquuqda beesha shanaad majority marka loo dadka ugu weyn jareer weyn waa dadka ugu badanaana reer xamar meel geey shayqaalkan iska tuur shayqaalkan hadii la dhoo maanta shayqaal 10 cabdibil xitaa isku keen karo gobolka Banaadir markii la dhoo isku keen karo jareera ku xoog badan markii la dhoo soo banaan bax hadii la dhoo shayqaal degmada ka hadla si soo banaan bax hadii la dhoo ma awood weyn ma lahan oo jareer oo kale ma lahan reer xamar sas oo kale ma lahan dadka mudan in la siiyo oo gobolka xuquuqdan gobolkan Banaadir oo wax laga siiyo amniga laga siiyo siyaasadii wax laga siiyo beelihii xaq ay ku leeyihiin degmooyinka wax laga siiyo waa jareer weyn waa aniga sideen kula shaqeynaa xaqeyga xaqiruusa seen amni iyo nabad iyo barwaaqo iyo duco iyo qalbi furnaan seen kula shaqeynaa aniga idhaahday sidoo you are nothing at all maba ma jirtaa idhaahday marka sidee marka amniga la sheegay aniga dad jiritaankeenin ii diidan yaa xaqeenin ii diidan shaqada ani asan dhaxmar karta maxay tahay waa tahay sida ka dhawaajisay beesha shanaad waxay ka kooban tahay afar qaybood jareer weyne Banaadiri Ruutis iyo Kulmis idinka ahaan maxaa idinka hortaagan marka inaad heshaan xilalka iyaga helaan anaga waa saan ku sheegay waa waxaan naga hortaagan inaan ku dhahay ninka meesha mas'uuliyadda loo dhiibo siyaasi ama xildhibaanka ninka loo dhiibo asaa laga rabaa aniga hadda yani haddii tusaale ahaan nin oo eyle ah Soomaa Cumar Soomana beesha shanaad soo gala Cumar Soomana haddii ka waa Hirshabeelle dhaqdhaqaaqeeda iyo shaqadeeda waxeeda ani meesha ma joogo asaa ima talo asaan ka rabaa marka Hirshabeelle maxkamadda hadii la dhisaa in yani xitaa haddii oo eyle wax ka hesho jareer weynihii kale shiidlii meesha joogo inuu wax ka helo makanihii meesha joogo oo makanaha kale meesha asaa laga rabaa laakiin makana shacab ee banaanka isku joogo siyaasad aan waxba ku ogeenin eelo ani banaanka isku joogo siyaasad waxba ku ogeenin maxaa ka qaban karaa waxba kama qaban karo waxaan kaliya awoodaa bas inaan dhaho meesha saabaashan ka qaldan inaan dhaho beesha Banaadiriga oo kamid ah beesha shanaad sida la wada socono gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka Banaadir iyo laba gudoomiye degmo haystaan beesha jareer weyn waxa sheegtay in gabi ahaanba xuquuq aysan ku lahayn gobolka Banaadir taasina caqabadeeda ay timid kadib markii aad weyseen matalaadii aad uga baahnayeen xildhibaanada baarlamaanka idinku matala 80 agaasimo hal agaasim jareer ee bajiro agaasimayaasha gobolka loo soo magacaabo soo 80 agaasim Soomaa wallahi hal agaasim oo jareer waa agaasimahan dhaay ma jirto koow saldhigyada gobolka Banaadir meeq saldhig waa 17 saldhig waa iyo inta ka sii badan hal saldhig oo dhaay saldhigan waa taliyihii saldhiga degmada Axmar Jajab waa jareer taliyihii saldhiga degmada Boondheer waa jareer taliyihii saldhiga degmada waa beri waa jareer taliyihii degmada dharkiinle waa jareer waa meesha ugu badan canshuurta oo jareer oo ka soo xareey waa taliyihii degmada wada jir waa jareer ama la dhaho horta
malahan bataatanba malahan jagaboontiyada gobolka banaadir laga soo galo taliyayaal ay leeyihiin Soomaa jagaboontada all gobolka laga soo galo hadaa aragtid kulli wada jareer waa wada jileec waa oo nimanka lama goolaha waa sayaaw kala duwan u imaadaan oo habiyaan hana qadaan iyo kan kale raxweenka hana qado waa adeeg waxa u badan habiyaan asaa u badan ya gobolka asaa ugu badan asaan wax dhiibi karo asaan ka go'do inoo dhaho dadkan walaalaheen waaye inaga jareer iyo habiyaan isku degnaa xuquuqda gobolka oo walaalaheen jareer kuleena waa kan laakiin goorma asiga dhaha marka aan la xisaabtamo marka aan awood u yeesho lambar 4 inaan soo banaan baxo taalada daljir ka khayli meel walba ka khayliyo bulsho aan soo markaas la dhigi kara dadka xaqeenu leen waxooda hana la siiyay yaa aan markaas saas ii soo banaan bixi karo kan kursi uu fadhiyo madaxtooyada markoo galaayo hebel ah dhahayo oo hor loo mootinayo kaasa aan rabaa inuu aan bulshada banaankeen asaa laga rabaa idinkaan xildhibaanada ma la fadhiisateen oo ma kala hadasheen inaad u baahan tihiin inaad xilal ka qabataan gobolka banaadir anaga xil inaan ka qabano dhalinyar ahaan anaga maan qabiilkeena u rabnaa qoomiyadeen jareer weynaa rabnaa inay wax qabato aan hadda for example aniga hadda xil ma rabo xilaa rabaa ahaan muu rabo laakiin waxaa rabaa qof jareer ah amaanta degmadaas la siiyo xasan sheekh ilaahayo jareer oo askulusta oo dhadhaca xitaa noo keeno waxaan rabnaa jareerkaana la keen shiil waa shabeel waa qofka cidii doonta qabato ani waxaa rabaa muhiimad u weyn waxay tahay qof jareera meeshaan wax ka qof jareera inta aan rabaa intaas le rabaa ani wax u muhiimsan intaas le rabaa wax kale ma rabo ani marka dadkan oo iyaga oo maxay aheedo oo xildhibaanada iyaga marka waxaa rabaa madaxweynaha inay gorgortan la gadaan mudana madaxweyne anaga 8 xildhibaanaan nahay 8 xildhibaan gobolkan banaadir degmooyin oo la taaban karo oo anaga aan leenahay oo degmo hebel jirto qabiilkee idinku magacaabaan asoo madaxweynaha asoo qofka rabo adag madaxweynuhu qof ka rabtid oo jareer keenso inay dhaan iyaga laga rabaa hadaysan iyagoo dhan wada dhigi karin hal qof ma laga waayna sidoo hadii la idin dhihi lahaa gudoomiye degmo ay gobolka ka heleysaan degmadii ay dooran lahaydeen wallaahi ani degmo ahaan hadii la dhoomo degmada waa bari anaga xaq u leenahay iyo degmada Boondheer waa horta degmada waa bari ana marka arko runtii waa ka calool xumaada waxaan ugu calool xumaada dadkeena say u badan yihiin canshuurta ugu badan iyaga dhiibaan jareer weyna dhiib waaxa fiiriya waaxyada waax oo dhan jareer degan hal waax dhan jareer degan waax labaad baray ka degantaa waax kale bar aqli maahan in marka dadkaas oo dhan la hagaro oo xitaa oo canshuurta xitaa loo dhiibin oo xitaa amniga iyo degmada loo dhiibin talii gadoomiye ku xigeen arrimaha bulshada waa gadoomiyaha ku xigeen oo arrimo bulsho waaya ma aha gadoomiyaha arrimaha bulshada degmada waa bari ma ku xigeen waay waaxidiyada halankeesana hal gadoomiye waaxid waay maamulka qayb ka tiin marka maamulka awood marka hal gadoomiye waaxid muxuu meesha qabanaa gadoomiyaha teetalka ugu sareeyo waxa waay ninka canshuurta ugu badan meesha keeno qofku majority ugu badan ay asiga xaq u leh in gadoomiye degmada oo hel la siiyo ya hadda aniga tusaale sidoo qof eyle inaan baxo ma tahay karaa degmada Cadalle ama kala degmada Warshiiq gadoomiye ma kan karaa Soomaa qofka inta gadoomiye waa bari nooga asina ma kan karo laakiin awoodii iyo dulmigii iyo xaq daradii iyo cadaalad daradii qofkii ka dhigayso inuu wax noqdo sidoo macallim sidoo waxaad kamid tahay dhalinyarada ka soo jeeda beelaha jareer weyne sida la wada socono wax qarsoon maaha in khilaaf uu ka dhex jiro beelaha jareer weyne ku aftirsada maxay tahay khilaafkaas beelaha jareer weyne ku aftirsada xilligan ka dhex jiro markii laga soo tago xuquuqda aad u doodaysid inay beesho hesho ama beelaha ay helaan horta khilaaf uu jiraa Somaliland iyo Soomaaliya is khilaafsan tahay mugtahay nimanka Somaliland ka soo jeedo oo siyaasiyiintooda inta way imaanaan waxay rabaan inay ka sameeysanayaan heshiis ay ka yihiin Soomaalida inta joogto siyaasiyiinta umada waa laba heshiis kii inta joogo oo Somalilanderka inta joogo oo Hargeysaanka Muqdisho joogo iyo kan xaga ka imaanay as Bluetooth khilaaf oo waxa jir oo beebeen lagu mashquulinayo Soomaalidan kale laakiin heshiis waay iskama maarmaan laba heshiis waxay ku leeyihiin ada meesha soo dhici inta ka soo dhici dad colaad naga wada dhaxaysa asqiyeen laakiin muuq ahaan inaan dad isaaq aan jirno meel walba aan muujiro marka jareer wax waaye oo jibooyinka ku jiraan iyo kuwa inta jiraan
horto khayr alaasi kuwaan Hirshabelle jiraan jareer muuqato waa anaga ahaan ka soo jeedo laakiin kuwa jubooyinka jiraan waa dad oo lijan qort uu jir Axmed Madow gumeysi sax oo ku hay gumeysi kan uu xumaa ku Axmed Madow asaa heesto lijan oo ku heesta ciidamada fiiri degmada Kismaayo yaa iskale ni ugaadeyna gudoomiye ah Kismaayo waxa iskale jareer meesha ugu weyn Kismaayo oo dhaqaalaha wax walba soo saar ya jareer waay nina waxa dada waxa lagu soo tawbara ugaadeen meelay soo jeedana lagu soo tawbara Kismaayo la keenaa Kismaayo la keenaa ciidamadii lagu qoraa saraakiil la siiyaa waxba la siiyaa war malwaay state-kaas maamul goboleedkaas jareero intaasoo mugu kule jiinka kule jilib iyo jamaam beeraha weyn kule oo la yaqaan ilaa iyo bu'aal iyo meelahaas oo dhan saako iyo gal sii soco waxyaabahaas iyaga dhan ay leeyihiin maloo quuri waay gudoomiye baarlamaan xitaa Jubbaland maloo quuri waay xitaa Kismaayo maloo quuri waay in la sii madaxweyne ku xigeen maloo quuri waay gumeysiga ugu xun oo siyaasadeed dadkaas ku jiraan wallahi dadkaas gumeysiga ugu weynaa ku jiraan jareerna markii loo dadka uu dhaqaale badan waay Mareykanka qof alaal qofkii Jubbaland oo jareer Mareykanka ciidihiisa oo dhan Mareykanka wada jiraan waa nimanka ugu badan Mareykanka iyaga jiraan waay war xitaa aqligooda inay iyaga Mareykanka ay jiraanee war dadkeen kolonaaskaanay ku jiraan gumeysigaanay ku jiraanee nina iska heestay Axmed la dhaho Axmedow ma sameeyno yani kacdoon shacab waxa laga wadaa in bulshadii oo xagga ay joogan oo Jubbaland ahaa oo jareer weynaha ahaa in kacdoon lagu sameeyo dhaqaale lagu bixiyo xamar la keeno jowhar la geeyo inta la keeno la tawbaro ciidanimo loo tawbaro meesha loo celiyo Axmedow dhagaha lagu garaac ama wixii meejo dagaal lagu abuur ma fahanti way sameey karaan iyaga jareer weyn ugu badan iyo habiyaha meesha habiyaha naftirkiis meesha dagaa shiiqaali kuwa gaal jecel iyo meesha u badan yihiin iyaga naftirkooda waa dad la heestayaal oo sasaa loo heesta isku midana annaga iyo habiyahan oo Jubbaland isku midana madaxweynaha xagga Jubbaland nin habiya xaq u leh ama nin jareer xaq u leh waa tahay sidoo markii laga soo tago dhibaatada Axmed Madow oo idin ku hayo khilaaf dhexdiina ka jiro reer Shabeelle waxay inta badan ka cawdaan in xiralkii dawladda ay ku lahaayeen hal beel oo kaliya isku soo koobtay oo ah beesha Gasar adi ahaantaada arintaas maxaad ka leedahay wallahi horto reer Shabeelle qabiil oo waxa waa iska weyn waay laakiin from in waxa waa siyaasadooda hoos dulmi marka la fiiriyo reer Shabeelle iyo Gasar iyo waxaas dhan dulmi weyn jiro waxaan ka hadloo fiir arag kan iska badhaaf jareer dhaxdooda waay maamul goboleed dad jiro ya hadda Hirshabelle yaa dagu jareer iyo habiya degto madaxweynaha habiy waay ku xigeenka habiy waay gudoomiye baarlamaanka habiy waay wasiir xigeen habiy waay waaris jareer weyne ya dadka dhaqaalaha oo beerahaas dhan laga qaado oo isbaarada meelahaas taalo oo dadka marayaan wadada isbaar ana ma iiba taalo isbaar Shabeellaha dhex ma ii taal yaa u taalo nin habiya u taalo habiye ana iima taalo jareer uma taal shiil uma taal wax u yaal malahan marka state-kii ka soo bilaw Hiiraan ilaa iyo Balcad ilaa iyo maxay aheedo gobolada dhan jareerahaas jiq waa buuxa markii habiy madaxweyne qaato ku xigeen inuu jareer qaata aheed ya habiyo miyaha madaxweyne qaadateen Hirshabelle qaadateen madaxweyniya tiin anaga jareer weynana inta soo tuul inta soo waxaan soo xarin ilaa iyo maxay aheedo mustaxiil deganaayo Shabeellaha ilaa Hiiraan Buulburd Jalalaqsi Soowad Jowhar Soowad Balcad Soowad aan degnaa walaalayaalow madaxweyne qaadateen ku xigeen anaga rabnaa inay dhaho marka wax meesha gaabiska jir waxa waaye bulsho dhamaantood sas qori looga heeyo cabsanays aan hadli karnaa jirto waa tahay sidoo waxa jira ciidamo ay soo bandhigeen xildhibaanada idinku matala baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo ay sheegeen inay qayb ka noqonayaan dagaalada ka soconaya dalka halkay ku dambeeyeen ciidamadaasi wallahi laba ciidan al soo bandhigay makana waxay soo bandhigeen ciidan Cabdifataax Qaasin oo isku soo sawiray kuwa booliis kuwa wax soo bandhigay dagaal galeena shabaab la weeraa sheekadii Dudublo riixal si aad u tagtaa saas oo kala waa aday jaliin weyn la sameeyay khatar jaliinkii la sameeyay dagaal galeena makana waxa dagaalka la galaa horta goobta in la tago waa balad weyn wasiirku oo tago makanihiyo mideeyo oo makanihi mid uqdudeysana jiro oo kursiga laga baaw wixii saan horta in la mideeyo makani la wada fadhiisi odayaasha dhaqanka isku keeno oo makano deegaankiin xureesta xabaad la isku deegaantiin waa baxay
xaqiisoo raadsaday xabaad gumeysiyoo diiday dadkan gumeysi ka bax inuu dhahaal rabaa wax cad maana 4 xabo ciidan oo as u dhow inuu isku soo sabiro waxa waay may refuse taas macquul ma ahan waa diiday ani ahaan waa diiday mana ma fiicno qalad waay asi jeeso iyo daayir amin jeeso iyo waxba isma dhaamaan ninkan baada cadaa oo maxamed ibraahim macalimo iyo senator Fortuna ka fiican oo nimanka ugu horeeyay dagaalka qaadeen waay oo dhaawacyadooda ilaa hadda xamar uu yaal iyo xawaadlaha dhaawacyadiisa la keen isku mid waay dhaawac makana maalkeen qof makan la dil maalkeen dagaal makan bilaab ma maqash meel makan qabsay ma maqash ma jirto wixii marka waa la isku soo sawiray wax dhaqaaq ay malaan shiilab hadda roon oo bandhig sameeyeen bandhigooda ah deegaankii xabaadley inay tageen oo deegaankii ilaa hadda dhaqdhaqaaq ay sameeyeen ciidankii isku soo aruurinooyin ee organize-kii ku jiraan oo dhahayaan anaga xabaadleeyaa joognaa deegaankaasaan joognaa waxaa naga maqan saanad military aan ku dhaqaaqleen maahan ciidanku way soo bandhigeen kumanaanku kun ciidanka diyaaray u tahay TV-yada aragtay way soo bandhigeen waxay rabaan bes amar xagga xafiiska madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha in dadkaasiyati sida xabaadla oo kale iyo sida abgaal oo kale loo financial grade loo qarash galeeyo dhaqaaq ay sameeyaan deegaanadooda ay xureystaan intaas ka maqan laakiin ana makan meel ku hay watahay qaybada dambe barnaamijkeena soo gaarnay sidoo macallim sidoo maxay tahay fariinta ugu dambeyn aad dirayso aniga fariinta aan diraya waxay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka iyo gudoomiyaha baarlamaanka wili awood anaga maanta qofka awood u weyn waa madaxweynaha waxaan ka codsanaa ilaahay ka cabso aakhiran u cabso qabriga yawmul qiyaam waa lisweydiina dhaalimka ama madluumka qofka la dulmiye waxaa la dhahay indhaha qofka la dulmiyo oo dad dulmi lu sameeyay indhihiisa ma seexdaan qulubtiisana ma seexato annaga jareer weyn markaan nahay ma seexano mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynena dalka tahay sharafaan ugu mudan tahay ixtiraamaan ugu mudan tahay madaxweyne daarood ma u tihid habii uma tihid dir iyo digil iyo mirifle ma u tihid isaaqna uma tihid waxa u tahay Soomaaliya dhan waxaan ka codsanaa xuquuqda gobolka Banaadir ee jareer weyn ee ku leedahay qofka rabtid kaamiiska noo soo saar si qofka adeegkii xitaa ololihii campaign-kii oo ku jireen oo xisbiga oo jareer gudoomiye degmo noo si intaas noo sameey mudane madaxweyne fariinteedii ku soo gaarto halkaas codsiyan ka codsanaa sababtoo tahay annaga gobolkan 95% waa ku dulmanaay waxba kuma haysan xuquuqdan gobolka Banaadir xasan sheekh qadaani siisid madaxweyne abaal weyn kaaga heena jareer weyn dhalinyarada ahaan aqoon-yahanada waxa abaal weyn kaaga heena waxa markaas noo cadaatay inaan gobolkan degno oo annaga canshuur bixino oo xaq ku leenahay laakiin hadii waxna la siinin waxa noo cadaatay inaan nahay dad la heestayaal ay gumeys ku jiraan ay noo cadaay wata aad baad u mahadsantahay sidoo macallim waa kaaga madcelineynaa sidaad nooga ajiibtay kasoo qaybgalka barnaamijkan allah ku sharfaan ku leenahay guud ahaan daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka diiradda wareysiyada ee toddobaadkan aan ku eegeynay dhibaatooyinka ay qabaan beelaha jareerweyne oo inta badan ka cawda awd qaybsiga dalka hanaanka loo maray waxaana barnaamijka marti inagu ahaa oo igala qaybgalayay sidoo macallim sidoo oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaalida ka soo jeeda beelaha jareerweyne tan inta ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij ka xiga nabadgelyo